Assalaamu calaykum. Maanta waxaan ka sheekeyn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo qiso ku dhacday wiil dhalinyaro ahaa markiisa horena fiicnaa laakiinse gadaal ka xumaaday. Haddaba wiilkaasi maxaa ku dhici doona? Qisadeena waxay ku bilaabanaysaa waxaa jira qoys ka kooban hooyo, aabbo iyo hal wiil ay dhaleen. Wiilkaasi wuxuu ahaa wiilka keliya ay dhaleen oo ay caruur ka haystaan qoyskaas. Wuxuu ahaa mid aad u fiican, baari u ah waalidiintiisa. Wuxuu ahaa mid dugsiga uu dhigto aad ugu fiican, masaajidda ku xiran, ahaa wiil aad u fiicnaa. Wiilkii markii uu gaaray dugsigiisii dhexe waxa uu samaystay asxaab aad u xun oo lumiyay kana leexiyay wadadii fiicneed uu waday. Asxaabtii waxa uu la socday muddo 2 sano oo kala ah. Wiilkii maalinba maalinka ka dambaysa waxa ay baraan waxyaalaha xun ay yaqaanaan. Wiilkii waxa ay gaarsiiyeen ilaa heer uu ka naco waxbarashadiisa, heer uu ka naco in uu tukado salaadaha. Waxa ay nacsiiyeen waalidiintiisa. Ugu dambeyn waalidiintii waxa ay dareemeen in wiilkoodu isbedelayo maalinba maalinta ka dambaysa, dabeecad xumo uu la imaanayo. Marka waxa ay go'aansadeen inay wiilkoodii wareystaan, ay xaal wareystaan, laakiin wiilku wuxuu ahaa mid ka qariya aanan wax u sheegaynin. Waalidkii waa ay dareemeen in uu asxaab xun ku faraq xirtay oo ay wadada ka leexiyeen. Sidaa darteed waxa ay go'aansadeen inay wiilkoodii waaniyaan, inay wax u sheegaan, inay si kor iyo si hoosba ula hadlaan, inay u geeyaan dad culamo ah si ay wiilkoodii u waaniyaan ama ay ugu duceeyaan. Laakiin wiilku wuxuu ahaa mid aad u dhag adag, wuxuu ahaa mid jirkiisu ay qabatiin daroogo gashay. Sidaa darteed uu yahay mid aan waxba ka maqlayn waalidkiisa iyo qof kaleba. Waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah in wiilkii uu asxaabtiisa aad ugu soo daaho, kadibna xaafadda uu imaado asaga oo aad u cabsan oo dhacdhacaya, aadna u xanaaqsan. Markii ay damceen in waalidkiisa la hadlaan, waxa uu bilaabay inuu waalidkii garaaco, inuu aad ugu qayliyo. Markii ugu dambeyn waxa imaaday deriskii uu ka celiyay wiilka waalidkiisa. Wixii intaas ka dambeeyay, aabaha dhalay wiilka waxa uu go'aansaday inuu wiilkiisa gebi ahaanba ka saaro guriga oo uu buuriyo. Laakiinse hooyadii maadaama ay tahay hooyo wax dhashay, waxa ay go'aansatay inaanan wiilkeeda la buurinin. Sidaa darteed la dejiyay qol kor ku yaalay oo guriga meesha ugu sareysa ku yaalay. Hooyadii waxay go'aansatay inay wiilkii dejiso guriga qaybta sare. Ugu dambeyn wiilkii waxa uu degay meeshii qolka sare ahaa. Waxa uu sameeyaa subaxdii waa uu soo kacaa, waxa uu aadaa asxaabtiisa xun, wuuna ka soo laabtaa gurigii ayuu imaadaa oo hooyadiis ayaa cunto siisaa. Waxa uu sidaa ku jiraba maalin maalmaha ka mid ah ayaa hooyadiis waxa ay aragtay asxaabtiisii dugsiga la dhigan jireen oo isla markaa dhameynaya iskuulkii. Waxa ay go'aansatay inay u yeerto, waxay kala hadashay arrinta wiilkeeda. Kadib asxaabtii waxa ay go'aansadeen in saaxiibkoodii hore ay la hadlaan. Waxa ay go'aansadeen inay hadiyad u soo qaadaan, inayna beri u imaadaan. Maalintii xigtay waxaa imaaday asxaabtiisii oo wadaan hadiyado. Waxaa albaabka ka furay hooyadii wiilka dhashay. Way soo dhaweysay, waxayna u tilmaamtay qolka xagga sare ku yaal oo uu degan yahay wiilkii. Waxay ugu tageen wiilkii oo hurda. way kiciyeen, way la hadleen, way la sheekaysteen. Laakiin wiilku wuxuu ahaa mid jirkiisa aad ay ugu buuxdo daroogadii, aanan dhagaha waxba ka maqlaynin, ee ku jira xaalad kale. Wiilashii way u dulqaateen, waxa ay sugeen inta ay daroogada ka baxayso, ilaa ugu dambeyn wiilkii uu ka soo miirsaday. Markaas ayay waxay bilaabeen inay la sheekaystaan, inay xasuusiyaan aakhiro, inay waalidka baari in loo noqdo ay fiican tahay ayay xasuusiyeen. waxyaalo badan ayay xasuusiyeen ilaa ugu dambeyn wiilkii uu ka ooyo oo qalbigiisa ka jilco. Ugu dambeyn wiilkii waxa uu u sheegay in uu rabo inuu ayaga raaco, laakiin ayagu waxay u sheegeen inay rabaan inay berito baxaan oo ay aadaan magaalo kale. Laakiin wiilkii waa uu ka diiday inuu ka haro ilaa ugu dambeyntii ay kaxeeyeen. Markii ay hoos u soo degeen, maamadii guriga ma aysan joogin. Wiilkii waa ay dhaqaajiyeen oo way wadeen. Waxay la maqnaayeen ilaa 15 maalin ayay guri ku hayeen. Dhanka kale waalidkii wiilkoodii waa ay ka quusteen maadaama ay ku ogaayeen mid aad u dhib badan, ayna ka quusteen islahaayeen wiilkiina waa uu idin dhaafay oo dib dambe uma heli doontaan. Marka wiilashii ka haysteen wiilkiina 15 maalin ayay meel ku hayeen ilaa wiilkii mararka qaar uu
u sheegayo in uu rabo inuu ka tago ayaga, sidaa darteed si uusan ugu tagin inay xirxiraan. Yani jirkiisa waxaa ku jira daroogo aad u badan oo aad ugu tan weyn oo qofka ku qasbaysa inuu mar labaad isticmaalo ayadii. Waxay go'aansadeen wiilashii afarta ahaa ee asxaabtiisa ahaa inay u geeyaan nin dhakhtar ahaa. Dhakhtarkii waxa uu baaray wiilkii, waxaanu u sheegay in jirkiisa aad iyo aad ay daroogo ugu buuxdo, sidaa darteed uu u baahan yahay inuu isticmaalo daawooyinkan. Daawooyin ayay usoo qoreen, waxa ay siinayeen daawooyinka ilaa 15 maalin oo kaleeto. 15 maalin oo uu isticmaalaya daawada waxa uu ahaa mid soo roonaanaya maalinba maalinta ka dambeysa, ilaa ugu dambeyntii uu ka ahaado mid fiican. Haddana waxay ku celiyeen ditoorkii, waxa ay baaritaan labaad lagu sameeyey wiilka jirkiisa, ilaa markii dambe uu ditoorkii u sheegay in jirkiisa uu caafimaad qabo. waxaaba moodaa inuusan weligiisba daawo ama daroogo isticmaalin. ugu dambeyn aad ayay ugu farxeen. wiilkii asagoo aad u faraxsan oo asxaabtiisa u duceynaya ayuu kasoo tagay. waxa uu soo aaday dhanka gurigooda. waxa gurigii markii uu imaaday uu gargaraacay ka furay hooyadiisa. hooyadiis markii ay aragtay isbedelka wiilkeedii ku dhacay aad ayay ugu faraxday. iftiinka ka soo baxa wajigiisa markii ay aragtay aad ayay u faraxday. wiilkii waxa uu hab siiyey hooyadiisa, waxa uu u sheegay in uu aad iyo aad ugu qaldanaa waxyaalihii uu ku samayn jiray, uuna ka codsanayo inay cafiso. laakiinse hooyadii waxay u sheegtay in wiilkeedu uu mar walba yahay wax dhibaataana aysan u qabin, inay mar hore cafisay, inay sidoo kale u duceysay. wiilkii waxa uu hooyadiisa dhahay, waxaan u baahanahay hooyo maanta in aan cuno cunto aad u macaan oo aad gacantaada iigu samaysay, anigana waan tukanayaa oo waxaan aadayaa musqusha. waayahay bay ku tiri. jikadii ayay gashay, cuntadii uu jeclaa bay u sameynaysay. dhanka kale wiilkii asagana musqusha ayuu aaday, wuu soo qubaystay, waxa uu suwaysa qaatay, waxa uu imaaday saliga, salaad ayuu galay. ilaa ugu dambeyn markii uu sujuudda gaaray uu sujuudii aad ugu dheeraaday. hooyadii cuntadii ayay karisay. cuntadii markii ay dhamaysay ee dhankiisa soo aaday, wiilkii wuu sujuudsan yahay. haddana waxay istiri sujuudda ayuu ku duceysanayaa. dib ayay ugu laabatay ilaa markii dambe xoogaa kadib ay kusoo laabatay. haddana ay aragtay wiilkeedii inuu weli sujuud u fadhiyo. waxa ay isdhahday malaha wiilkii xoogaa sujuudi ayuu ku dheeraystay. ugu dambeyn way u yeertay, wax jawaaba ma lahan. kadib way u tagtay. markii ay taawatay waxay aragtay in wiilkeediiba dhulka ku dhacay, aanu wax naf ah ku jirin, ee asaga oo sujuudsan uu dhintay. maamadii aad ayay u naxday. marna way faraxsan tahay, marna waa ay murugsan tahay. waxa ay ka naxsan tahay wiilkeedii sida kadiska ah ku dhintay, waxayna ku faraxsan tahay wiilkeedii oo qaatumadiisa wanaagsanaatay oo asaga oo salaad ku jira dhintay. marka waxay ku cawaaday wiilkeedii ayadoo leh ayaa waxa u imaaday ciidihii dariska ahaa. waxay weydiiyeen xaaladeeda, waxay uga sheekaysay qisadii ku dhacday wiilkeeda. aad ayay ayagana ugu farxeen in wiilkii dhibka badnaa ee aadka u xumaa uu ahaaday mid qaatumadiisa wanaagsan tahay oo ah qof wanaagsan, asagoo sujuudsanna dhintay. waayahay qisadeena halkaasi ayay ku eg tahay. haddaba waxaan ka faa'iidaysanaynaa qisadan waxaan ka faa'iidaysanaynaa marka hore in waalidiintu ay aad iyo aad muhiim u tahay in ay la socdaan caruurtooda, wiil ha ahaado ama gabar ha ahaato. keliya in aanan lagu daanin inuu iskuul dhigto, ee mar waliba la aado iskuullada ay dhigtaan si loo ogaado ciyaalkooda, dadka ay saaxiibada leeyihiin, iyo markii ay iskuulka ka imaadaan halka ay qabtaan. tan labaad waxay ku socotaa caruurta wiil iyo gabarba waxaa muhiim ah waa inaad waalidiintiina baari u ahaataan, waayo haddii aad baari noqoto waxaa wanaagsananaysa noloshaada adduunyo iyo noloshaada aakhiro. ugu dambeyn waxaan ka faa'iidaysanaynaa qisadani inaad iska fiiriso qofka aad saaxiibka la naqanayso. haddii aad saaxiib wanaagsan samaysato, saaxiibkaasi wanaagsan noloshaada wax buu ku soo biirinayaa, noloshaada wuu dhisayaa. wax walba uu naftiisa la jecel yahayna naftaada ayuu la jeclaanayaa. haddiise aad samaysato saaxiibka xun waxa uu nolosha ka ridi doonaa noloshaada, waxa uu galaafsan doonaa adduunyadaada iyo aakhiradaada.
hadda waa inaan ka digtoonaanaa asxaabta xun. Wassalaamu calaykum.